السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوضي الكسر وهذا ميل كست الدنيا دافع على ذاك كلا joogtaan waxaan leenahay barnaamijkeeni kumaata sida hore ugu balaqaadnay waxaan inii soo wadnay barnaamijyo fara badan oo aan dhinac walba ku kala eegi doono barnaamijkan waxa la yiraahdaa kumaatahay waxaan ku wareysan doonaa shakhsiyaadka caanka ah shakhsiyaadka haldoorka shakhsiyaadka had iyo jeer la xiiseeyo ayaan isbaraynaa shakhsiga iyo dadweynaha sida hore naga ballan qaaday horena wada taqaanaan abwaanka weyn intii aan aqoonay taariikh nololeedkiisa iyo completed ay la tusarban inii soo bayaaminayna barnaamij yar oo aan ka badan insha Allah 15 minutes ilaa 20 oo dhaxaysa ugu horeyn ku soo dhaw abwaane magacaaga saddexan adoo ku bilaabay magacaaga iska garanaysaa abwaane anigu meehi waa miskiinkii Axmed Idaad baan idin salaamayaa khiyaarta waad mahadsantahay horta marka koobaad marka labaad aad baan u salaamayaa khayrtan ku xilin bulshadooda magacaygu Axmed Iidle waana ku dhawahay aad baad mahadsantahay wax badan ayaynu ka ogaan doonaa taariikh nololeedkiisii waa aniga Shucayb Matani Nuuriya ama sidii taqaana Shucayb Nuuri abwaanku waa ka isku kay sheegay waxa weeyaan waa abwaan Axmed Iidle Jaama abwaane taariikh nololeedkaaga waan rabnaa in yar ka yara iyo suugaantaadii hawlahaagii aan door meelood yar istaagno taariikhda xagee aad ku dhalatay horta markuu horeysa taariikhda ma leeyahay inta iska garanaysaa maxaad iga waa farabaday waan xawiyaan aniga waxaan ku dhashay gobolka Togdheer magaaladii aan ka ahayd magaceed titirada magaalada gobolka Togdheer magaalada Burco duleedkeeda magaalada Beer ayaan ku dhashay magaaladii abtiyada absolute abtiyada hiilka iyo hoob oo qira hareertooda laga maro u haweyna تيلا وقت صلاة. absolute أدنى صلاة. مروان سلامي أنا عشان مسوي. أبتدي قالي. هذه. أبتدي أنا وكل سلامي. هذه. واحد شرطة. هذه شرطة أغنى هاي سجانته. waxay saddex baa lagu misaalo waxa la yiraahdaa waa hidkeentay iyo maxay hibokeentay iyo maxay marxalad keentay marxalad keentay duruufaha qalafsan dadka ayay dhahaan شعب صار شيء تصدق خلاص أي الله يراها. أنا أقول لك نصدق horta run ahaantii dad badan way la qaban fikirka ay ma aaminsanayeen saddexdaaba ay keento waxaan aaminsanaynay kaliya ay tahay waxaan qofka Ilaahay uu garto hibo way adoo soo codkaaga loogu qaaday taabana aaminsanahay anigu way sababtu waxa weeye hadii ay tahay hido oo kale matalan aniga matalan family qaar way yar gabi jireen oo garanaysa hadii hido tahay waxaan arkaynaa family badan oo wada gabiya ah هذا ظروف تاعنا دي مش مرحلة تقعد أنا سو مرتو war hadii hibadka ama geela garoomeed iyo xisaabo badan baan dadkay deesan lahaay weynam way wada gabi jireen هذا ظروف تاعنا تيجي كده ظروف بدل الصومالي بيننا حن كل هاي سيدا حبشة نو جبنا سياش كونا وضع جبسة سياش كونا ظروف إن كستاين إنه هاي اللي هذا وده ما تقول سوغان تبدل أيين كوتشين عربته وكل واحد وده ما عربته وده كان ودن كان لا يراهدو موريتانيا oo carabta Afrika ah oo isugu jirta Carabiga ayaa la dhahaa wadanka 1 milyan ee gabiya 1 milyan marka inuu wadamada shaaq gabiya baynu ka mid nahay gabiga ku dhigan yahay wax barashadaadii iyo halkii aad ku soo hanan qaaday waxaan filayaa inay tahay caasimadii raga aadiya waxaan magaalada Yurowe ayaan dugsiga ayaan madrasada quraanka iyo dugsiga hoose soo qaatay kadib dugsiga dhexe iyo dugsiga sare magaalada weyn ayaad tii markii dambe laftigeeda sidii ugu maqaalaa socdaalkaagu socdaal dheer buu ahaa ka hor intaad Euro imanin iyo wadanka Faransiiska gaar ahaan aan imika nagala soo hadlayno waxa weeyaan Toulouse aadiyaad waxa igu maqaalay inaad Aasiya iyo xaggaas oo dhan waqti badan aad ka soo shaqeynaysay carabaha habarka qaba ayaan tigay markii hore nimanka carabta ayaan wadamada khaliijka Cumaan Imaaraadka iyo magaalada Cadan ayaan muddo joogay kadib waxaan u soo baxay xaggan ay muhiim marka waqtiga aad bilowday ugu horeyntii socodkaaga burcadana ka tagtay sidii ahayd markii ugu horeysay aan dalka ka baxo waxay ahayd 2006 dabayaaqadeedii anigoo markaa nin dhalinyaro ah ma weyniye waa 14 sano ka hor
عيار ما بدنا ما بدنا هذا هذا ما بدنا بمعنى كلمة أنا يرون ما بدنا ما حاسوستا gobaygii ama maxay geeraar hal ama maaso hadda way farabadayn kulay deesay oo kala baxaan wixii ugu horeeyay tiriso markaad is ogaato goorma haday kula shacay wadu ila waqtigii aan yaraa afarreed iyo meelaha waskiir turtuuran waxa geeyay waskiir ha ka laakiin gabayada wixii hana qaaday gabayada hana qaadka ugu horeeyay waxaan tiriyay adigu 2007 iyo 2008 waqtiyada sideedii waa xilliga is ogaateen bahashani inaan haa gabi karayaan gabay dheer oo sidii nimankii waaweynaa ma nimanka weyn halkooda ma gaarsiinayna inaan bal tirin karayo xoogaa ku dayasho yaa inaan tirin karayo xilliyadaas suugaantaada way fara badan tahay had iyo jeer waxaad ka gabaydaa arrimaha bulshada waaqaca jira waxyaabaha dee u baahan la taabtaad iftiimisa wax ka tilmaamtaa wixii insha Allah wixii aan bulshada wax u taraya ayuu wixii ilaahayna ka garansiiyay gabay aan rabo oo dheera oo aan u jecelahay oo xigmad badan iyo xikaayad badan iyo culays badan watay ayaa jira oo aan videogan description kiisa inii soo dhigi doono oo dheer oo la yiraahdo qarni iyo qabiil marka qarni iyo qabiil sidoo ku curmay inagoo inta yar ugu horeysa si hordhac uga sii dhigayna barnaamijka qarni iyo qabiil ha gabayga sida aad magaciisa xustay waxa weeyaan sida magaciisa ka muuqata waa qabyaalada iyo qabiilku waa qabyaalada laana qabiilka Soomaaliyeed nahay xagga qabyaalada u adeegsanaa qarniguna waxa weeyaan waqtigan casriga ah ee joogno adduunka aad u baxay marka qabyaaladu magaciisa ku saabsan yahay iyo wixii magaranaysa hadaynu bulshada weyn la yar wadaagi karaa inta hore inagoo waliba uga balan qaadayna sida runtii gabaygaas waxa weeyaan 177 tuduc weeyaan ha waxba saama dheer adigu laakiin meel badan bay taabanaya bilowgiisa hadaynu la yar wadaagno bulshada waxa weeyaan Soomaaliya qabiiladnimo dhago waad qalibanteen qolo in loo kala baxaa waa qorshe xumaane qurumuhu dhamaantood ka tagay qaybo reer ah qarnigeenu joogniyo qabiil baan isqabanayn qabyaaladana waa shay xuno lagu quraabtaay dan u qaasar ruuxii wata qiil ku raadsada qaaxiyo xanuun weeye iyo qadafyo shaydaan balinaanay qiimaba lahayn baynu qiraynaa qoys aabe qayd iyo xuduud ma lahayo qaybo lagu joojo qoys aabe kaliya dhalay qaybisa abi marka halka hadii aynu yar iftiimino wax laga yaabo dhalinyaro badan oo adiga ku dhalinyarada kamid tahay ayna si wacan u fahmin kulaanu bahs sugeeneed baan iska dhex jiraa waan iska marka waxa weeye waxaan nidhahnaa waxa qabyaalada la dhahaa meel ay isku taagto la yiraahdo halkaas soo gaadha halka hoos ma dhaafto ma jirto waxa markaa yiraahdaan basasha waxa baasha la dhaho cunto ku darsano sidaa buu dhilantaayo sidaa basasha u dhilanto ay qabyaaladuna u dhilanto waana basasha runtii waa la kabla kabiiro waa tan iska socotaba marka intaan si dhameyn halka ka dhax kale maxaa marka sababta keenaysa waxaas waxa weeyaan qayb iyo xidid malahay qayb lagu joojo sidaas uu socota si uu socoto qabyaalad markay socoto Soomaalida ka kaxaysa qabiil dhexe ku geeysa qabiilkeena ka kaxayso ugu dambeyn waxay ku keenaysaa reer mataan family ayaa la baha masala beheblaay marka waa taan halka ku qoys aabe kaliya dhalay qaybisa abid walaalihii ta beheblaayati qoys aabe kaliya qaybisa abid qaranku mugooniyo qabiil waaba kala qaab qulqulkiisa ruuxeegaya marka dad saas ku soconaya oo inuu wada duubi doonaa bulshada insha Allah la wadaagto abwaanka xigmad iyo xikaayad badan buu hayaa iyo gawayo suugaantiisa laga bixi maayo marka marxaladan imika jirta wax badan oo haynaa naga taa bulshada nagu soo jeeday may waa la iska deeymaayo waxa weeyaan ana in badan inoo waxa weeyaan ka caajismaysan waxa jirta marxaladda hadda aynu ku jirno sida runtii caalamka oo dhan waxa soo maray xanuun saqmarayna oo maxay tahay nin yar iyo nin weyn iyo maalqabeen iyo faqiir ba ay baashu si wada qatay maxaad ka curisay isaga كورونا مية كورونا دو استي هو مقول قال اسكت شو قيو محن كل هذا هل تحيرو أفريرو كوبان أوكي أيام كيري وده هي له يمكن أن يكون تماما راح أقول بلا مساعدة تنتظرين يرلو ذا قلوب الشدة يوم صاحبنا محمد على عرضنا أدنى السلام يا قبيا وين يركع له أيها كتير يقبيا بدل مركانه أفر إيري أيها تسلية عبر درينك مركانه حنيري الدنيا ذا إله باله وينو عرقنا
isagana awoodiisa weyn axad labaynayna isaga abuuro ka dhigay eegasay tahay ardambana isagaa duubiyo aakhir loo noqon ibtiladu iyo khayrkuba isaga amarkii weeyaan isagaa if iyo aakhiroba uunka maamula axad qiray ruuxii inkiray keliya ahaantiisa isagaa addoomaha dhammaan marin abaalkood isagaa addoomaha dhammaan marin abaalkoodee islaam qiray usuushiyo waxyiga iyo arkaantiisa ama qiray udgoonow rasuul iyo axaadiista sala allahu calayhi wasalam inay jirin awood kale arlada wuu ogsoon yahay armi adag mid haystiyo hubiyo agab waxbaabiyo ilbaxnimo mid sheegtiyo aqoon saynisyahan aaday iyo kuwa awoodda isbidee abarku taagleeya iyo daran ay taal badan lahayn aalad iyo xoogba waa inagoo kale iyo wadamadeena ayraska soomaaliya laysuma irkanayo adduun eega waa siman markaa waa tay inay sanad weynu arkayn oo laysu bixi kari waayo jaynuhu islaamkii siduu ooda ugu giijay jaynuhu islaamkii siduu ooda ugu giijay uu edaga ugu hooyay ugu itaal sheegtay ayaa gebi adduunkii dhammaan aqalka jooga xabsi guriga hore usii geliyay islaamka jaynuhu moogtay intaan stay home baana bilaabay isna sidii laga yara dhigay afkana waxay ku duubtaan nidaamka inkirayeen waa face mask oo bahalkay ilaa yiraahdeen hablaha islaamka yaaray soo gashay kulli riyadu marba wada cibaadada iyo ku diiday wax walba haahay alif jeer ka badan waysadana loo amaaradi tanda farxal iyo shaambo iyo xisoo farihi waa ku markii nooro inagu iska weysaysan jiray alxamdulillah xigmada aad u dhuuxay alif jeer ka badan waysadana loo amaaradi awoodaada weeyo rabo aayadaha qaar aadamuhu intaal ma laho waanu aragnay axad kale ma jiro oo ducada loo irkanaya allah ayu ifiyo aakhiroba adigu noo heeyay aafaad ka dhacayana rabo ayar naga suuli ayaan aamin sida runtii waad aragtaan abwaanku waxa weeyaan meelo badan buu ina hogal tusaalay aadamaha in ay wada sinaayeen safareenkan sidoo kale amuurihii haddii aad nagu cusub tahay channelkan horta marka hore subscribe gambaleelkana furo haddaad yool tv ka maqantay waxaan kuu ogsiinayaa inaad wax badan ay ka maqayn xigmad iyo xikaayaal sheekooyin barnaamijyo taxano badan baan soo wadnaa waxaan leenahay ku taxnaada yool tu kalena la soco sabistaabo oo gambaleel tixi sheertana ku tebi toosintiinu waa noo taabagale commentiga tagoo sii taabgare laga lug bixi maayo abwaanku waa fara badan yahay kolley barnaamijkiina gabagabadii baanu sii wadnaa waxaan doonaynaa inaan min iyo laba haddaan ka gaadhsiin karayno gobayadiisiina aynu ku yaro turno weliba bahal gobayo cajaayiba oo maxay tahay layskaga neefi maaye waxa weeyaan cajaayiba oo dareen gooniya wata sida runtii aniga aada ii soo jiitay markaan arkay abwaanka inoogu luqeynaya waa iska fahmaysaa ninka midhaha iyo laxanka iyo howlahaba iskale gabaygan waxaa la yidhaha midabta koor waa soomaalina waxyaabaha ugu badan had iyo jeer koor curisay maxaad ku curisay haddaad mid iyo laba noqdo inkastoo aan rabaa inaan barnaamij gooni ka sameeyo gabayga midabta koor iminka inoo diyaarsana laakiin haddii aan in yar la wadaagno akhyaarta iyo bulshada waxa weeyaan waa dirsooc ama cunsuriyada iyo waxyaabahan ka jira waddankana ama meelaha aynu soomaalida wadamada ay soomaalidu degto markaa wuxuu waqtigu aan tiriyeen waxay 2018 mar magaalada muqdisho nin Soomaaliya ha lagu dilay waliba si xun oo la gubay waa adeerkii baa la gubay isagana waa loo diiday markaa insha Allah waynu duubi doonaa isaga iyo gabayo kaleba laakiin hadda sayr arartaba waxaan miinka gabay murtida aan tirshiyo midhaha suugaanta ma weelo igama baxdiyo ciiday kuma good muuminiinta kuma duutiyo magan ilaahay mamnuuc wuxuu ka yahay baa jiro looga meel dayo mamnuuc wuxuu ka yahay baa jiro looga meel dayo ee mahadooyin goortaan arkaan soo markiciya waa marka wax kugu dhashaan baadi markuu deeqa marka ahni timaado ayuunba marxalad keentay ayaa ninka weynidee waraalada gaaga warada ma garanaysaa waa ruway la socda minka murtida aan tushiyo midhaha suugaanta ma weelo igama baxdiyo ciiday kuma good
manfaciya adduunka ma dayo waa magaanimo in wuxuu ka yahay baa jiro looga meel dayo mid kastoo la mariyaaba waa madaxina u yaalay marsi haddaanu mahmaah ka tegin waa micno la-aan mahadhooyinka hortaan markaan soo mirkiciyayaan mutaxiyo hawraartu waa muhiim iskaygii afarta mahiigaan kodee mugugufxiinkii dhammaayada cirka hore iyo maya aroortiidhi gudgudaha mirtii soo kaco aradka maansheeye mawjado badoo guuxaysiiyo gabay minkiisiidhi afar kalena meeshaan ku waday balanu miisaamo micnaha duucda aan uga socday iyo meerisyada sheego muqdishaan warkii igaga yimi shoogay maalmaha muslimkaa la gubaya dad yahu magana waayaa midab kala takoorka cabduu mowqifkaa nacay meelna diinta kama soo galiyo dhaqan la maamuuso adduunyadu madow iyo cadaan muumin iyo kaafir way wada mamnuuceen cunsuri maragna loo yeelo idinkuna mid qurabaad tihiin muuqa iyo diin muslimiin ayaad wada tihiin midhaha soomaaliya bal maxaad ku miligtay ninkaa waa gayaan mudana baan misna aad u muufaynaysaan waa makhluuqnimo maraaq iyadaba aad ugu shiteen mahadha weeyaan muslimiin miyadan aan ahayn midhaha soomaaliya miyirkii miyuu idinka tegay waa mushkilo waa gabay dheer weeye aad weyno isaga iyo gabay kale waynu duubi doonaa waa run sida runtii gabayga hore iyo gabaygan iyo qaarar kale fara badanba waxaan ka dhigaynaa barnaamijyo maadaama waqtigeenu hayo oo aan ugu talagalnay inaan horta ogaano shakhsigan aadka ugu culus bal wuxuu yahay kumuu yahay halku ku dhashay halku kusoo barbaaray umurtiisa maxaa ka mid ah wax badan baynu kala faadaysan doonaa insha allah guntii gabagabadii inagoo kusii shaqaynaa maxaad nala sii wadaagaysaa ayaad kusii dartahay inkastoo kuwaagi inoo hadheen waxaan leeyahay xagga dambe uga dhigaan xaggii gabayada miya absolutely haddii laga eray wacyigelin wuxuun gabayadii waxaan ku darayaa tix gabayahoo la yidhaahdo tix gabayahoo iyadana aynu afar mid lasii wadaagi doono khiyaarta waxa weeyaan gabaygaas xustay ee shanta marka waxaan idhi marxuunkii cabdaa siishii rabay geenya shaaximane waa tuu shakabadda ugu xidhay shiinka meel adag shin ma la arki waa tuu lahaa shuruga soomaaliya shantuu sheegay yidhi baa sidii sharad u yaalla shaacir dhegna waa kii mar kale xidhay shuruudii abwaandheeg aad baanu ugu soo ducaynaynaa u salaamayna waxa weeyaan wax laynoo sheegay ilaahay ha caafimaad sariicaas iyo ha ugu wado waxa weeye tirarka weyna somaliland ku taagan tahay mid kamid weeye ilaahay cimriga iyo caafimaadka baa kusoo siyaada insha allah kusoo ducayna shaacir dhegna waa kii mar kale shaacir dhegna waa kii mar kale xidhay shuruudii shacab waana sheekhi muqtaa shaqalka siisan iyagoo shindhalad weeye sheegtay meel adag shaqal adag markuu galo ayay sharad ku qaataan waa abwaaninta kuwa dhintay Allahu naxariis sida cabdiidaan oo kale iyo kuwa dambe shaqal adag markuu galo ayay sharad ku qaataane adigu gabigu u dheer yahay waxa weeyaan Soomaalidu shantay doonaysa shiishkii maan dhigin sharadkii ma beenoobin oo shaaxin way dhali shimbiraba mid ciidu xigtuun bay la shurubtaay mana jiro shantii saafarood axad sharaysta marka xaggii siyaasadda ma aha waxa weeyaan in ay Soomaalidu walaalo tahay sida ka muuqato waxa weeye calankay doonaan hasitaan qadiyaday doontaa hasitaan laakiin midabkan iyo qowmiyadahan iyo Soomaalihan inaan wada dhalno walaalnahay Djibouti bota calankeena sidata Soomaaliland hadii la ictiraafiyo hadaan la ictiraafin baqadiyadeeda ayada ku weyn waa muqadas marka ma taabanayo wax siyaasada laakiin wuxuu ka warramayaa in dadkan dad walaalaa yihiin hortay shanta baa intaan noqon walaalahay imkana sidoo bay walaalo yihiin of course waa dashaas wax gacantaas bay ku wadayaan absolutely dhammaantiin aad iyo aad baan niisoo salaameynaa meel kasta dunida iyo daafaha dacalada ka kala joogtaan waxaan leenahay aad baad mahadsantihiin sida qiimiga iyo qaayaha leh aad maxay tahay uga soo qayb qaadateen oo dhageysateen abwaanka oo sidoo waqtigiisa qiimiga iyo qaayaha layna siin waxaan leenahay aad baad u mahadsantahay isagana abwaane ereyga ugu dambeeyay bahwadaaga waxaan aad baan idin salaameynaa waxaan idin leenahay murti gabayo badan oo bulshada wax u tara ayaan insha Allah soo gudbin doonaa ku xidhnaada ULTV naguna lana socda insha Allah billahi karim inta mar kale ku kulmi doona barnaamij lamid ah waxaan leenahay dhamaantay anaga iyo Axmed oo isku duuban iyo bahda ULTV sidaas iyo nabadgelyo iyo amaanad leh ka hor intaad ka bixina subscribe si hubi inaad ku dhufatay lacag kuma joogo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh